marka doctorka ayaan ku wareejinaa insha Allah ta'ala ciwaankiisuna waxa weeye waxa la yiraahdo mafaatix saada marka insha Allah ta'ala ma sii faahfaahinayo waxaan ku soo wareejinaa doctor insha Allah ta'ala doctor بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك نرجع اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك النشور الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى إلهي بما هدسن سبحانه وتعالى ما هذا إذل تنير تنوين ربنا أي أسقنا سبحانه وتعالى له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ما هذا سأل كدب وحنومها النقيا جروب كاليفورنيا إيو قيبت ديني جاه ومحوها جروب كرعسن إيو إن الله أنتي قيب يمكل هيد قبل قابضة ندوين كان يكلن دينمات كان قيمها بدن اللوجون يلي دمرك يقبلها مسلمات كا إن الله أنتي كالين موحدة كل هيد أو مد محوها جونيها بكل هيد أدب أمهاتين بعد الحمد لله عز وجل sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dumarka iyo gabdhaha muslimaadka ah ee faatixati almu'tamar u soo hormaray oo ka soo qayb galay iyagana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waliba waqti fiicanna joogay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo waxaad ogsoon tihiin qofka marba hadduu talabulcilmi iyo khayr faa'iidaysi uu soo dhaqaaqo abaalka ilaahay uu siina subxaanahu wa tacaala waa inuu jannayo abaalka ilaahay uu siina waa inuu ka raali noqdo abaalka ilaahay uu siina waa inuu ducadiisa aqbalo abaalka allah uu siina subxaanahu wa tacaala waa inuu muraadkiisa gaaro intaas in ka badan allah idin siiyo dhammaanteen allahna wada siiyo akhawaati alkariimaat muxaadarada cinwaankeeda waa furayaasha in qaws degan inuu jiro furayaasha laga helo ama furayaasha qawska degan almafaatiix kaa weeyaan waxaan rabnaa insha allah tabaaraka wa tacaala 10 qodob inaan dul istaago ama cinwaanka haddii la raba albaytu waalusra almutma'ina guriga iyo qawska degan iyo furayaasha lagu gaar arrinta iyada ayaan ciwaanka dhihi karnaa waxaan rabaa 10 qodob insha Allah tabaaraka wa tacaala oo kooban inaan dul istaago qodobka koobaad hordhac qodobka labaadna xasilooni qaws maxaa la yiraahdaa qodobka saddexaadna tiirasha iimaaniga ah ee guriga muslimka lagu dhiso qodobka afraadna kaalinta labada zawjka iyo zawjada ay ku leeyihiin gurigaas degan dhisitaankiisa iyo jiritaankiisa qodobka shanaadna tarbiyada awlaadda iyo muhiimadda uu leeyahay guriga degan qodobka shanaadna ama lixaadna mishkilooyin guryaha deganaantooda khatar ku ah qodobka toddobaadna tusaalooyin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xaggii ka ahaatay iyo tusaalooyin koobanoo ayagana ka ahaat saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo deganaanta guryaha tusaale u ah qodobka kale wadiiqooyinka iyo jidadka loo maro in deganaan guryaha ay yeeshaan
qodobka u dambeeyana waa gunaanadka iyo gabagabadii ama alkhaatima. tobankan qodobaan rabaa insha allah tabaaraka wa tacaala inaan mid walba aan bidhaamiyoon iftiiniyo. waxaad ogsoon tihiin ummad kasta jiritaankeeda iyo sharafteeda iyo muuqaalka ay muuqanayso waxyaabaha lagu qiyaasa waxaa ugu muhiimsan alusra. ma dad kala furfurtayba mise waa dad iswato? ma dad iswaafaqsanba mise waa dad kala daatay? weliba qowska ayaa laga egaa. hadda qolyaha reer yurub oo hadda horumarka teknolojiga iyo ilbaxnimada ee qalabeed gaaray, markii laga eego dhanka akhlaaqda laga eego amaba qowska laga eego, waxaa laga yaabaa 10% in la siiyo. ummadahan muslimiinta ah oo xataa aqoonta diineed ay aad ugu badnayn, kuwa ugu liidan, haddii maanta miqyaaskaas iyo miisaankaa la saaran, waxaa laga yaabaa in 90% ay gaaraan ishaysashada, isla jirka, iswadashada, isu dulqaadashada, isxambaarashada. marka qowska marka qiimo aad u weyn ayuu leeyahayoo hordhac u horreeya waxaa weeyaan xasiloonnida. waa qalbiga inuu muxuu ahaa raaxo dareemo, waa inuu muxuu ahaa mashaacirta iyo dareenka deganaan ay dareento. guriga waa in laga dareemo ixsaas caatifi, dareen isu dhimrin ah, isjacayl ah, isla socosho ah, isu dulqaadasho ah in laga dareemo weeyaan. lidaalika rabbigan subxaana wa tacaala markuu guryaha ammaanayay, ammaanta ugu muhiimsan uu ku ammaanay waxaa ka mid ah amaba oo alla nagu gallad sheegtay, wallaahu jacala lakum min buyuutikum sakanan. allah subxaana wa tacala guryihiin wuxuu idinkaga yeelay meel aad ku xasishaan, ood ku hurudaan, ood istresska iyo buuqa idinkaga dego, oo culays la'aan ah ayuu rabbi subxana wa tacala idin yeelay. wallaahu jacala lakum min buyuutikum sakanan weeyaan. aayaddii kale waxay ahayd markuu rabbigeen nagu gallad sheeganayey inuu allah subxaana wa tacaala nafteenna oo abuuna aadam ah uu nooga abuuray aswaajan litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawaddatan waraxma. marka guriga deggan, guriga alaab badan ay taalla ma ahan, guriga cusub ma ahan, guriga dad badan ay joogaan ma ahan, guriga nin iyo xaaskiisa ay ku nool yihiin ma ahan. waa guriga laga hela quluubun raxima, laba qalbi ama ka badan oo isu naxariisani. guriga laga helay weeyaan guriga طمأنينada laga helay. qodobka labaad ama kan saddexaad, tiirasha iyo gundigiyada iimaaneed ee guryaha lagu dhiso aad bay u badan yihiin, laakiin waxaa ka tilmaamaya 3 qodob. 3daas qodob waa tiirasha udubdhaxaadka u ah in guri degan, guri qabooban, guri laisfahamsan yahay, guri laisqiimeeyo, guri alluu raalli ka yahay inuu dhismo. asbaabta iyo waxaa weeyaan rakiisooyinka iyo tiirasha iimaaniga ah waa 3dan qodob ayaan tilmaamaya. kan koobaad waa taqwa allaahi tabaaraka wa tacaala, guriga in alla looga baqo, aabbihii alla uu ka baqa subxaana wa tacaala, hooyadii alla ay ka baqda subxaana wa tacaala, carruurtii alla ay ka baqaan subxaana wa tacaala. ilahay wuxuu leey subxaana wa tacaala, waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan. qofkii alla ka baqa marka meel uu ka baxa ma waayo. culays kasta, mid caafimaad noqoya, mid risiq iyo xoolo noqoya, mid isfaham la'aan noqotaya, mid cabsi iyo baqdin noqotaya, mid waxaa weeyaan xataa isla hadal iyo stress noqoya.
قفك مربى هدو الله كبق سبحانه وتعالى قري قاس دتك جوجا الله كبقان يجعل له مخرجا خلاف كست إلهي حلبو كيني باهي كست درك بربو كيني حنون كست ربي عافمات بو كيني دميني ما كست إلهي فهمو كيني عرور الآن كست إلهي عرور بو كيني وهكذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا قضب كلابات وحويان تيرشة إيمانك قريها دقن لقدسه والصلاة وذكر الله في البيت والصلاة ووقت قيد اللي كذا وخشوع دي الإلاليو وأركان دي الإلاليو ومستحبات كذي الإلاليو وصننتي كهو الرئيسي كذا بيسي الإلاليو إيه حسك الله سبحانه وتعالى لبداس ويسكل فاقنا وقضب كلابادا وحي كم يتهي أساسية إيمانك وقرق دقن لقدسه لذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام حديث حسن يا وحليه نوروا بيوتكم بالصلاة قريهين وحد كو افتيمسان صلاة كو افتيميو أيها النبي قال صلى الله عليه وسلم حديث كان وحديث حسنة صلاة مركة يذكرك الله سبحانه وتعالى قريق افتين أيها النقضان قضب كان وقضب آد مهمة قضب كلا والركيزة ده وقراءة القرآن قرآن كان لغو أخري قريقة آدي آد بو النورية آد أيو قرحية ودجية النبي قال عليه الصلاة والسلام آد بو أرنك أقوها اللي حتى الصلاة مركو كهلا قضب قراءة النبي قال وحونا فري عليه الصلاة والسلام أما ونوش يا قفك الصلاة ديسة وتو كذا ومسجد كدو كذا هي الصلاة وكدو كذا قرق وكدو كذا إن أي فضل بدنتهاي وي أجر وينتهاي وي بركة بدنتهاي تنقرق اللي كدو كذا إلا صلاة فرض كأهمو يني مرتين محو النبي نساوي عليه الصلاة والسلام بركة لقيه لي إذا جنانت لقيه لي إيه طمأنينة لقيه لي أي كان يسويان لذلك النبي قال وحولي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة حديث كاسم مسلم يا سوريي وحولي النبي قال عليه الصلاة والسلام قرئ سورة البقرة لو آخريه شيطان كوكعررا وكبحصدا ومد أواذو مسوا أقستاي كرو كما نولان كرو ومد دقن مفس هذين كرو مد باتين كرو كما دعي كرو مقلي كرو ساسو النبي قال عدينا عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويان ويا سدح داس ركيزة أو تير وسدح تير أو إيمان كلا حريرته أو قريها إن يدقناذان أو قريه قيمة بدن أي نقضان لقاه له وإلهي بقيتانك سبحانه وتعالى sidoo kale salaada iyo dhikriga Allah iyo qodobka dambe quraanka Ilaahay oo la akhriyo guriga baladinka qiyaasa guri ay 5 qof joogan ama 3 qof ay joogan ama ugu yaraan 2 qof ay joogan oo habeen kaste qof kaste uu hal juz uu ku tukada ama uu akhriyo بل هذه قياس نورك فضلك وناقة كإمادي سدح جزء أفر جزء زيادة قفك كو ختمة قرآن كتضوى مع الموت وأفر جزء إيو لح بيج أما تضوى بيج أما شم بيج بك قفك تضوى مع الموت كو ختمة قرآن كوا سدح جزء بل وحى إلهي حقي لقاه لا أركب بل قياس قرآن كمركة ونور وهنون وخير الدنيا من الآخرة وحيابها لليابا وقسوينك وهدعي أولي بأمتنا الصومالية دحدة كده وحكمدة قريها قاركوت وحيك الشيكتان المشاجرات مرنضة ننك وأكيا كمي حاسكين وأكيا كمي يسوي مرمي ويمرميان كان وحشي كان وحولي وحبك بجران سهل لي لما يلايو waa un muxuu ahay dood taagan arrinka asaga ahaa
ayaa waxaa weeyaan imaamkii masjidka ayaa loo geeyey oo reerkii culays ayaa ka taagan reer kuu dhismay laakiin muran kama dhammaado imaamkii ayaa loo geeyey imaamku wuxuu ku tali marka suurat albaqara in gurigaa lagu akhriyo qisada ninka soo warna wuxuu leeyahay waa soomaaliya ka dhacda la socda ma aha meel kale hal usbuuc kama soo wareegin ilaa gurigii wuu isbedelay quluubtii ayaa isbedeshay waxaa soo degtay xasilooni markaasaa waxaa dhacday guriga inuu noqdo guriga ugu deganaanta badan marka qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala akhrintiisa wax inaba caadi ma ahan qodobka afaraad ama rakiisada afaraad oon dul istaagi raba waxaa weeyaan kaalinta labada zawj ninka iyo xaaskiisa ay ku leeyihiin guriga deganaantiisa waxaan ka bilaabayaa ninka ilama jooga laakiin way gaari waana la gaarsiini ragna way joogaanba oo annagaa ka faa'iidaysayn laftanaga meesha dumar miiran ma ahan rag badan ayaa fadhiyo marka kaalinta ninka ragga uu ku leeyahay gurigaas guri degan oo qabooban inuu noqdo kow almucaamala bilmacruuf qofka inuu xaaskiisa kula dhaqdo si wanaagsan oo qurux badan oo bilatii hiya axsan ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii aad arrimahaas oo kale ka hadlo qofka ficlan hoos buu u dhici ninka ragga ah markuu nabigeenna muulku ka joogay arrinta ayada ah u maqlo aad iyo aad buu runtii inuu gaabiyey u dareemi nabigeenna wuxuu le calayhi salaatu wasalaam khayrukum liahlihi qofkii inkugu khayrka badan inkugu sharafta badan inkugu ragsan miyaa taqaanaan waa qofka reerkiisa ugu sharafta badan weeyaan ugu dhimrinta badan ugu naxariista badan ugu gacan furnaanta badan saas ayuu nabigeena cadayna sal slam wa ana khayrukum liahlihi aniga oo nabi maxamed ah ayaa reerkiisa ugu khayr badan ayuu nabigeena le sala allahu alay wasalam tirmidi ayaa soo saara xadidka waa xadiis saxiixa qodobkaas marka waa muhiim ninka ragga ah isaga ayaa qayim ah oo qaa'id ah isaga ayaa waxaa laga rabaa inuu reerka wanaag ku dhaqo qodobka labaad annafaqa waa inuu reerka ninka ragga ah uu nafaqeeya nafaqada waa laba qaybood qayb waa waajib waa waxyaabihii macruufka ahaa oo deegaankii iyo cunnadii iyo marashadii iyo isbitaalladii iyo waxbarashadii iyo wix la midka ah qaybta waa qayb ninka ragga saarno ilahay baa saaray subxana wa tacala xataa gabadh haddii ay qaniya tahay oo taajirad ay tahay ilaahay subxaana wa tacaala dusheeda waajib muusan saarin markii ay noqoto zawjayn iyo wix hoos yimaado nafaqada raggaa laga rabaa mararka qaar waxaan is weydiiyaa war qolyahan xuquuqda dumarka in la dumiyey ka sheekeeya aayaddaas iyo xadiidkaas iyo xukunka sharciga ah ood allah subxaana wa tacala ninka wax walba culays dusha ka saaray ma arkaan miyaa mise waa dhagaa waa iska ndhaduubaan ama iska ndhasaabaan ayaan dhahaa ragga waxyaabaha ceebahooda waxaa ka mid ah inuu noqdo qof reerkiisa ku ciriiriya waajibkii sidoo kale ragga kaamilka aan gaarin waxaa ka mid ah oo meeshii la raba aanan gaarin ragga reerkooda ixsaanka iyo nafaqada sunnada ah oo waxaa weeye dheeriga ah oo tawadudka ah iyo waxaa weeyaan fadliga ah aanan la aadanoon siinin kuwaas weeyaan marka nafaqada ragga laga raba qayb waa waajib qaybta labaadna waa macruuf iyo ixsaan ziyaada ah weeyaan qodobka kale oo ninka ragga laga raba rifqu dhimrin nabigeena wuxuu leh alayhi salatu slam xadis imaam muslim uu soo saaray maa kaana arifqu fii shayin ila zana wamaa nuzica can shayin ila shaana dhimrinta shay kuma sugnaato ilaa shayga wix qurux badan ayuu noqdaa aad buu qurux badnaadaa lagama siiba dhimrintii ilaa wuu qurux darnayaa in laisu dhimriyo khaasatan ninka ragga ah inuu waxaa weeyaan aad u dhimriyo qodobadaas marka saddexda ah ninka ragga hadduu ku dadaalo reerkaas dhankaas wuu ka qaboobay inuu hab dhaqan fiican kula dhaqmo reerkiisa tan labaadna gacanta uu u furo wixii karaankiisa liyunfiq duu sacatin min sacatihi qodobka saddexaadna dhimrinta uusan noqonin qofka kan walow kunta fadan haliida alqalbi lam faduu min xawlika uusan noqonin waaya waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah qofka
in uu aad iyo aad ugu dadaalo in reerkiisa ninka ragga ah uu saddexdaas qodob xaggooda aan laga soo gelin. waxaan u gudbaynaa qaybta labaad oo dumarka, taas ayaana aad noo khusaysa maanta maadaama xuduurka iyaga ay u badan yihiin. haweenayda ayadna si cadaaladaan u sameeyo ayadna saddex qodob bas ayaan ku gaabsanayaa, oo saddexdaa qodob haddii laga helo insha allah tabaaraka wa tacaala reerku uu noqoni reer degan oo itmiinaan laga helay. qodobka koobaad alطaacatu bilmacruuf, alطaacatu bilmacruuf, in lismaqlo oo qofka dumarka haweenayda muslimadda ah iyo gabadha muslimadda ah ay zawjkeeda maqasho oy dhegaysato bilmacruuf, wixii wanaag ay ku maqasho. marka macruufka waxaa ka bixi munkarka, culays ba ha noqdo. maxay ku heli marka? gurigeediioo degnaada bas maaha, gurigii wuu degnaani, wuu qaboobanaani. macruufkayga waxay ku helaysaa dhibrinta, laakiin waxay ku helaysaa jannay ku helaysaa. nabigeena wuxuu leeyahay alayhi salaam xadiis ibn xibbaan uu soo saaray oona haabita can rasuuli llah sal ll slam, nabigu wuxuu leeyahay alayhi salatu slam idaa sallat ilmar'atu khamsaha, xadiidku u dheeraa, idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa xasanat farjaha wa ataacat zawjaha dakhalat iljanna. qofka muslimadda ah haddii ay shanteeda salaadood si fiican u tukato, bisheeda ramadaanna ay soonto, kolley buu ka tegiye, markuu ka tagana ay muxuu aha ay qadlayso, ilaan bishii cudurka ayaa soo geliye, farjigeedana xuma iyo zina ay ka dhowrta, ninkeedana hadalkiisa wanaag ay ku maqasho, dakhalat iljanna, toos ayay jannada ugu xarootaa. iyada marka jannada meel dheer ay rag ka doonayaan iyagoo u fududahayba. afartaa haddiiba laga helo jannada ilahay ku xarootay, saas nabigeena cadayna calayhi salaatu wasalaam. daacadii ay ku hesho marka iyo wixii la socday daacadaas. haddii laakiin middi kudaag ay noqoto oo ninka ragga ah markuu amar bixiyo ayadna amar ay bixiso, waa mushkilad. guryaha waxyaabaha dumiyay ka midta. dumarka inta badan guryahooda waxyaabaha dumiyo ugu muhiimsan, warka aad ha loo dhegaysto. halka ugu khatarsan waa noo imaan doonta alcinaad. waa cinaadka, qofka inuu noqdo qof soo taagan. halkaan aan aadno maya ma aadayn, inta aanu guurna maya uma guurayno, iskoolka ilmaha meeshaan aan geyna maya ma geynayno, dugsigaan aan geyna maya ma geynayno, waxaad martiyaa joogtaa yeella ma yeelayno. ma rabtaan shayka ugu weynoo reer dumiyo oo dhankiina ka dumiya waa alcinaad. qofka inuu muxuu noqdo qof soo taagan waa mushkilad. qodobka labaad, qofta muslimadda oo haweenayda ah gurigeeda inuu degnaado oo gurigooda u degnaado, waxyaabaha ka caawiya waxaa ka mid ah xusnu alcishra, dhaqan wanaag. wacaashiruuhunna bilmacruuf marka la yidhi walahunna milu ladii calayhina bilmacruuf. qodobkaasna waa qodob aad muhiim ah. hal qodobaan dhegta idinkugu sheegi oo aad muhiim u ah. qodobka wuxuu mataqaanaan ragga fura lagu furay leeyihiin. kollayba hooyooyinka weyn aad bay u yaqaanaan, way garan karaan. laakiin gabdhaha yaryar inay aad u aqoonina laga yaabaa. miftaaxa ragga waxaa weeyaan aطaaca. kunii lahu ama yakun laki cabda, inaad u noqoto addoon u noqoto, addoon inaad u noqoto, isna wuxuu ku noqonaa addoon aad leeda ood ku guurtood rarato. jeebkiisa wuxuu ku jiray adiga unbaa qaadani, wax alla wixii dabiicad wanaagsan ay u lahay adiga unbaa qaadani, wakhtigiisa adiga ayaa qaadani, awooddiisa adiga ayaa qaadani. marba waxaa kaloo jira ragga mararka qaar in la sheego waxyaabaha meelaha laga gaadi karo inaad ogaataan waa muhiim. ragga meelaha laga gaada waxaa weeyaan alixsaan, in loo samafalo. adiga samafal u samey. weliga hadda inteena halkaan fadhino qofkii culays uu ka haysta zawjkiisa waa halkaas ha sameeyo. adiga ixsaan u samey, wanaag ugu dadaal.
hadduu xanaaqa isaga dul qaado hadduu baahan yahay cunno sii meel carfaysa ha tago hadduu kugu qayliyo dhagaha ka furayso ammaan mararka qaar waxyaaba dheeri ah oo adeega u sameey waxaa weeyaan waxaad arkaysaa isaga oo haddii aad saa fiiriso dhanka adna saa kuula fiirini siduu kuu adeecay haddii aad dhankaan eegtana eegi haddii aad orodana kula ordi haddii aad fariisana kula fariisani laakiin wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun waa dadka khibradda lah ama dadka ilaahay waafajin baa heli karo arrinkaa isaga yaan la moogaanin oo waxaa weeyaan ragga mafaatiixdooda ay ka mid tahay ha la ogaado qodobka u dambeeyo oo laga raba qofka muslimadda ah waa tarbiyat alawlaad carruurta in la tarbiyeeyo oy carruurtaada carruur toosan noqdaan oo carruur waxbarana ay noqdaan oo carruur edabla ay noqdaan oo carruur nadaafadla ay noqdaan oo carruur caafimaad qabta ay noqdaan oo carruur ummadda dhan ula socota ay noqdaan weliba dhanka wanaagga ah arrinka asaga wuxuu ka qayb qaadanaa guriga deganaantiisa canugii salaaddii isagaaba bixi ila waa tarbiyaysay gabadhi xijaabkii waa xirani ila waa tarbiyaysay canugii waxaa waa baari ileen adaa ku tarbiyaysay canugii jiiraankii wuu badbaadini adaa ku tarbiyaysay canugii iskuulaadka namar fiican ayaad ka keeni adaa ku tarbiyaysay canugii waxaa weeyaan wuu xishooni adaa ku tarbiyaysay inta ayada ahood adig ku tarbiyaysay ayaad gudahan ugu helaysaa arrinka asagaha marka adiga iyo zawjkaade mar aad ku qabanaysaan war gabadhaan iska socota oonan xijaabnayn maxay ahayd oo wiilasha la socota war canugan salaada muxuu ahay aan aadaynin muxuu ahaa iskuma qabsanaysaan war canugan foodheeraha oo muxuu ahaa timaha hoos ka xiran muxuu yahay iskuma qabsanaysaan canugan labis xumida maxaa iskuma qabsanaysaan canugan jiiraanka dhagax tuuri muxuu iskuma qabsanaysaan maxaa yeelay canugaa tarbiyaysan yahay waxyaabaha marka keeno inay qoysaska dumaan waxaa ka mid ah in carruurta ay carruur aan tarbiyaysana noqdaan kadibna hooyadii ay aabbihii u qabsatoy tiraha carruurtan tarbiya la'aanta adiga ayaa keentay carruurtan noocan maad ku qaylisid carruurta maxasaan ugu fiirsanaysaa ayadana uu saa yidhaahdo carruurtan dumar kulameedka ah muxuu ahaa dumar kulameedka ahaa carruurtooda way tarbiyaysan yihiin qur-aankay xifdiyeen way dadaalayaan kan kale wey maxaa kugu dhacay kadibna halkaas hadalkii uu kabriid ku daarmo ay halkaas kadibna reerkii uu ku dumo waa dhacdaa way dhacdaa arrinta ayada marka tarbiyada carruurta aad iyo aad ay muhiim u tahay yaan loo dayma la'aanin guriga deganaantiisa qayb fiican bay ka qaadanaysaa saddexdaas qodob ayaan ku soo koobaya marka aniga insha allah tabaaraka wa tacaala kaalinta ay hooyada ku leedahay iyo muxuu ahaa zawjada ay ku leedahay guriga deganaantiisa waxaan u gudbayaa qodobka shanaad oo ah asaaliibta carruurta lagu tarbiyeeyo carruurta markaad tarbiyaynayso iska tarbiyey ma aha jid cad oo bacwaan ah oo la maro oo kitaabka alla uu sheegay subxaana wa tacaala sunnada nabigeenna ay sheegtay calayhi salaatu wasalaam sidoo kalena waxaa weeye culamaau tarbiya culammada wax tarbiyey iyo tajaaribtii ummadda laga faa'idaystay ayaa jiro aad u badan waxaan ku soo koobayaa shan qodob carruurta tarbiyadooda asaaliibta lagu tarbiyey shantaa qodob biidni illah caza wajal haddii aan marno carruurteenna way toosayaan carruurteenna way wanaagsanaanayaan carruurteenna waan ku farxaynaa kuwa rabbigeen u yidhi subxaana wa tacaala rabbanaa hab lanaa min azwaajina waduriyaatina qurata acyun ilqabuusi kuwii rabbigan uu ku sheegay ay noqonayaan biidni illah caza wajal qodobka koobaad alqudwa canugaada maxaad ka rabtaa canugaada waxaad ka rabtaa inuu ahlu salaad noqdo mata mis maaha canugaada inuu xaafid quraan noqdo canugaada inuu alla ka baqo canugaada inuu xishooda canugaada inuu dabci wanaagsanaado canugaada inuu quruxsanaado canugaada inuu nadaafad badnaado ayaa doonaysaa adiga ha lagaa helo marka salaadaadi toosi oo nadaafadaadi toosi oo hadalkaadi toosi oo xishoodkaada toosi oo alla ka baqitaankaada toosi adiga ayuu ku daawani waad aragteen hadda markaa salaada la galo canuga yar oo sanadka jira ama 2 sano jira markaad salaada gasho muxuu samayni wuu kula tukani
salaadda kula xirani wuu kula sujuudi maxaa yeele adoo ku daawani wax alla waxaad samayso adiga canugaas waxay u yihiin wax ka sareeya waxayna jirin adi marka ha ku eego ha kugu daydo waa qodob aad muhiim ah qodobka labaad alraxma oo dhimrinta naxariisashada nabigeena calayhi salaatu salaam nin reer baadiya u yimid markaasaa wuxuu arkay nabigeenna calayhi salaatu salaam oo xasan iyo xuseen dhunkani markaasaa wuxuu yidhi nabi allow ma carruurtaad dhunkataan 9 canug ayaan leeyahay 9 canug maa qabaltu minhum axadan hal canugoo 9ka ka mid weligay maan dhunkanin waa 9 canug ayuu leeyahay gabar iyo waxay noqdaanba weligay hal ka mid maan dhunkanin yidhi markaasaa nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu naxariista qalbigaada ka siibay maxaan kuu qaban karaa carruurta in loo naxariisto inamaa yarxamu allahu min cibaadihi alruxamaa nabigeena calayi sla slam ibrahim markuu geeriyoonay waa tii ilinta ay ka qubanaysay oo nabigeenna markay saxaabada weydiiyeen uu lahaa taa waa naxariis ilaahay qalbiga uu dhigay markaasuu inamaa yarxamu allahu min cibaadihi alruxamaa uu nabigeena yidhi alayh slat slam marka carruurta in loo naxariisto oo qaylida laga yarayo oo canaanta laga yarayo oonan la dilin oonan muxuu aha la dhaawacin qalbi ahaan iyo jir ahaanba oo waxaa weeyaan waxay u baahan yihiin loo qabto oo mararka naxariista waxaa ka mid in la edbiyo xataa naxariista waxaa ka mid in la edbiyo mararka qaar laakiin edbin sharciga waafaqsan waa inay noqoto qodobka kale alcadlu cadaaladda nucmaan bin bashiir radia allahu taala ardaah ayaa waxaa weeyaan wuxuu warinaya nabigeena calayhi salaatu salaam inuu aabbihii u yimid markaasaa wuxuu yidhi bashiir baa dhihi nabi allow ninkaan la yidhaha nucmaan ayaa waxaan siiyey addoon inaad markhaati ka noqoto na waxay ugu qasabtay hooyadii ee markhaati ka ahow inaa wiilkaa siiyey nabigeenna wuxuu yidhi akulla baniika naxaltahum ilmahaadoo dhan iyo wiilashaadoo dhan addoon miyaad siisay oo xoolo miyaad siisay waxad miyaad siisay markaasaa wuxuu yidhi maya markaasaa wuxuu yidhi laa ashhadu calaa jawr iyo cadaalad darro iyo dulmi aniga markhaati kama noqdo ayuu nabi yidhi sal ll slam carruurta marka in cadaalad loo sameeyo oo gabdhihii cadaalad loo sameeyo oo wiilashii cadaalad loo sameeyo oo dhammaantoo loo wada sameeyo oo kuwa yaryar loo sameeyo cadaalad oo kuwa weyn loo sameeyo oo kuwa adiga aad jeceshahay oo baariyaalka ku ah oo adeegyo dheeri kuu samaynaa iyo kuwa aan ku samaynaynin aad cadaalad u samayso shaki waxaan lahayn canuga adeega dheeriga sameeyo oo muxuu aha qur-aankii aad wada xifdiyi tiri waa isku fahmo jus soo xifdi aad ku tiri kana jus soo xifdi kii juska dheeriga soo xifdiyey oo muxuu aha kii aanan xifdinin ma sinno lama simaayo cadaaladda waxaa weeyaan kii dadaalka badan bixiyey oo wakhti badan bixiyey in la karaameeyo kan kalena hoos looga dhigo taas waa tarbiyada qayb ka mid ah oo kii muxooga aanan muxuuha waxba soo akhrin haddii canuga marka ay ka tahay tabar dadaal uusan yaraysanin laakiin ay tabar ka tahay waa baab kale ta iyada ah taas kuma jirta laakiin carruurtii isku fahmo ah carruurtii isku wakhti ah midka dadaala i kanan dadaalaynin isku martabo ma gaaraayaan marka waa in muxuu ahaa dhanka isaga ah cadaaladda lagu dadaalo ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aanku wuxuu ku leeyahay nabigeenna amar ayuu ku siiyey wa umirtu liacdila baynakum waxaa lii faray ayuu nabig sal slam inaan cadaalad idiin sameeyo marka cadaaladda laga marama weeyaan qodobka kale alxiwaar in la wada hadlo annaga haddii aan soomaalinahay dhaqankeenna waxaa weyaan amar waryaa halkaa mar halkaa aad dugsiga aad madrasada aad iskuulka aad gabar iyo waalkaan dhaq guriga muxuu tirtir firaashka gogol suuqa wax ka soo gad inti aad dharkaa feerayso cadiyayso waa awaamir socota waaba dhaqankeenna soomaalida waxyaabaha aan dhaqanku len ay ka mid tahay marka arrinka isaga ah waxaa ka habboon in lays maqloo la tashto ayaa ka qurux badan in lays waraysto oo fadhiya qowska uu leeyahay ay dhacaan oo toddobaadla ah ama bilo ah oo canuga 3 sano jira
waad ogsoontiin ayayaalka dhaqankii lagu aqooni jiray canuga 3 sano jira iyo 2 sano jira way u sheekayn jireen intaan halkaa fadhida hadda sheekooyinkii ayay nooga sheekayn jirtay annagoo yaryar oo 2 jir 3 jir 5 jir ah in badan ka mid waa la xasuustaa oo quruxda badnaa waliba nolosheen wax badan ay ka bedelaysaa sida dhabta ah marka xiwaarka iyo wada hadalka labada isqabto oo ninkii xaaskiisa iyo caruurta iyo muxuu ahaa waalidiintooda waa in arrinka asaga arrin jira uu noqdo oo lis waraysto oo canugu u dhihi kara hooya arrinkan aniga ilama saxno maxaa yeelay waa saa iyo saa iyo saa annaga dhaqankeenna waxaa weeye canuga hadduu mar biira waxa ilama saxno afkaa la goosani shib canugu marka wuxuu noqonayaa gudaha ayuu ka huri guduhu ka hurayaa kadibna maalin alle maalinta fursad uu helo wixii huraya ayuu bannaan keeni marka canuga intii ummad kale ila saaxiibi lahayd oo ay been u sheegi lahayd oo waa ku jecla ay dhihi lahayd gabar iyo wiil waxay noqdaanba adiga waan ku jeclahay dhah adiga warka ka dhegayso arrinta ayada kala hadal adig kala dood si qurux badan billatii axsan marka xiwaarka markii muddo la wada hadlo saacad 2 saac 3 saac la wada hadlo kadibna go'aan baan isla qaadani waxyaaba aad xambaarsaneeda laga yaabaa inaad ka tanaasusho tiraad haye adinkan idin day oo lagugu qanciyo ilaa adina ma tiid laguma waxyoonay qof muxuu ahaa mutakhasis oo yani tarbiyada boqolkiiba boqol ku soo faragoyna ma tiid bini aadan kaamil lama helay xataa hadduu qof professor yahay marka ilmahaas mararka qaar talo waxaad ka helaysaa aadan cid kale ka helaynin caruurta marka la sheekaysto qodobka kale waxaa weeyaan oo u dambeeyo الدعاء دعاء إن لو دعي عرورت ولقى يينا دعين يينا دعين إن أتقعمه كرو تاكت وط الله وحوي ديسته خير الدنيا خير آخرة وط المامت لبا قفات المامت مرني يدعين تنكباد والله بدي والد أو كل شيء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قبري قال كجران انت كل سمرين culayska aad soo maraysa waad ogsoon tahay adigaa mararka qaar isdhihi alla maalintaa maxaan aabbasaa u yidhi ama hooya alla maalintaa maxaan muxuu wax u yeeli waayey waxaa qaarkeed ay ka shallaynayaan maalin aabbihii ama hooyadii ama hooyadeed ama aabbaheed ay meel u dirsadeen oo yidhahdeen kac halkaas aade wax meel fulaan iga soo qaba uu ka madax adayga qofkii waalidkiina maanta uu dhintay haddii bilyan uu bixiyo maanta waalidkii uusan joogin uusan amarkaas ma yeeli karin fulin karin maanta waa nicmo weyn oo aad weyn qofka inuu waalidkiis u duceyn karo aw waladin saalix yadcuu lahu qofka inuu ahlu salaax yahay waxyaabaha lagu garto calaamooyinka lagu garto waxaa ka mid ah inuu waalidkiis u duceeyo qodobka labaadna waxaa weeyaan alawlaad rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alatii anamta calaya وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سورة الأحقاف سوما قرن مركب حويان لما أيضا ويان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وسورة دي سورة دي ويان تنهر سورة دي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وسورة دي يا سورة دي ويان أحقاف تندم صوبة تي هرر تنهر وحويان وسورة النمل تنكرن وسورة الأحقاف وهي marka ducada waa muhiim waxaan qiso aan ka akhriyey kitaab la yidhaahdo sheekh abulxasan nadawi kitaabkiisii ahaa oo xayaatadiisa ugu hadlayey ciwaankiisa waxaan xasuusan doonaa ayaa waxaan ka akhriyey qiso cajiiba agoon ayuu ahaa sheekh abulxasan nadawi 500
oo kitaab ayuu qoray oo qayb English ah qaybna waxa weeyaan Carabi ah qaybna Urdu ah ayuu qoray Hindi ayuu ahaa qarniga haddaan soo dhaafnay aclaamta muuqata oo ummadda islaamka oo kaalinta weyn ku leh ayuu ka mid ahaa wuxuu yidhi markii aan yaraa rajo badan ligama qabin carruurtaada markay yar yihiin qaarad aad u jeceshay oo leeda kan ama tan meel fiican ay gaari doonaan waxbarasho sare ay gaari doonaan ummadda ay anfici doonaan way anfici doonaan qaar baa si gooni yahaana qaar waxaad leedahay kuwan maxay yihiin kan see la yeeli doonaa soo ma jirta arrintayda soo ma dhacda wuxuu yidhi marka aniga rajo badan hooyo igama qabin agoon ayuu ah hooyadiis ayaa korisay markaasaa wuxuu yidhi wanaharat kul maa fii kinaanatiha min adducaa'i fiya wax alla wixii boorsadeeda iyo qalbigeeda iyo jirkeeda ku jiray oo duco ahaa anay isugu kaygaysay dhammaan kadibna wuxuu noqday ninka asaga ahaa markuu 17 sano jiray 17 sano markuu jiray ayuu kitaabkii u horreeyay qoray oo kutubaha hadda culimada professorada ay akhristaan ka mid 500 oo kitaabna uu gaaray waliba waxaan filayaa 17 inay ka yarayd 13 inay heedaan filaya waa hubin doonaa insha Allah tabaaraka wa tacaala marka ducada wax sahlan uma laynina aad iyo aad xoog ha loo saaro carruurta loo duceeyo waxaan u gudbayaa qodobka 6aad ayaan u gudbayaa oo ah mishkilooyin iyo culaysya faamilka deganaantiisa khatar ku ah kuma daahi doono insha Allah tabaaraka wa tacaala waan boobsiinayaa qodobka koobaad alqadab waa carada nabigeena calayhi salaatu salaam markuu muxuu ahaa nin u yimid uu yidhi nabi allo ii dardaaran wuxuu laa taqdab mar labaada wuxuu yidhi dardaaran laa taqdab ha caroonin mar saddexaad ha caroonin aslan qadabka sababtiis waa shaytaan ninka xaaskiisa markuu furaa wuu caraysan yahay xaaska markay ninkeeda leedahay fur waa caraysan tahay markay muxuu ahay dhibaato u geysan ama u geysan wuu caraysan yahay marka reerka uu dumi cara ayaa muxuu asaas u ah carada waxaa weeye asaasa kulli baliya bale kasta laf dhabar ay u tahay tan labaad almuqaaranaat adiga ninkaaga waa nin iska gacan yar waa yara bakhayl insaxa tacbiir amaba waa nin aan aad u qurux badnayn amaba waa nin waxaa weeyaan gacantiisa wax badan ay ku jirin amaba waa nin waxaa weeyaan waxyaabaha qaar rabta aadan ka helaynin gabadha saaxiibta ah ood wax wada barataan ama jiraanka tihiinna ninkeeda inta iyadu waa ka duwan kadibna ninkii ayaa marka haweeneyd waxay la aadi oy leedahay hebelba sidaa weeyaane adi maxaa kuu diiday hebelba saas ayuu sameeyaa adi maxaa kuu diiday sunta ugu weyn oo guryaha dumisay ka mid miyaad ogsoon tahay gabadhan hawsha ayada kuu sheegi waxay ku sheegeen runtin kale inay run tahay yaa kuu sheegay arrinta ayada inuu gacan furan yahay ood ninkaada ka gacan furan yahay yaa kuu sheegay ayadaa kuu sheegtay ayadaa kuu sheegtay inuu muxuu ka dabci wanaagsan yahay muxuu ahaa maadaa ogsoon maya ayadaa kuu sheegtay ama heblaayo kalaa kuu sheegtay soo ma almutashabbic bima lam yucطa kalaabisi thawbi zur ayuu nabig sal slam qofka waxaan la siinin qofka inuu haysta muujiyo waa qof laba mara oo been abuura xiran ayuu nabig sal slam dumarka ku badan yahay arrintaas ayada heblaayaan iskaga dhicinaya kuwa soo ma arkin markii hoolka meherka iyo meelaha la jooga ninka kula soo heshiinaya waxaa weeyaan $30,000 haligu mahriyo iyo $100,000 haligu mahriyo iyo 500 oo gram oo dahab haligu mahriyo waana waxba kama jiraan waxaa naagaan iskaga dhicina weeyaan iyo ummaddan iskaga dhicin ma jirta mise ma jirta soo ma jirta tan marka muxuu ahaa aad la barbardhigi waxaa laga yaabaa inay arrinta ayada ay jirto waxaa kaloo dheeri ah waa runtaa dhanka asaga waaba kaga fiican ka soo qaad waxyaabo kaloo badan oo ilaahay subxaana wa tacaala ninkaaga uu ku fadlili oo ku wanaagsan yahay ayaa jira oo kaas isaga ahna oo kuwa la sii uu ka qatan yahay hal nin ah oo kaamil adduunka ilaahay kuma abuurin oon ambiyadii ilaahay ahayn oo macsuumiinta ah hal haweenaya oo kaamil ahna ood ilaahay abuurayna
ما جرت إلا ياوة إيشيغا مريم بنت عمران إي آسيو صوما وهكذا مركا مقارنات شيء قال له يقان اسبربر دقة اسبربر دقة وحيابها دميو أي كم التريرة قضبك كلا قفك التدخلات الخارجية خلاف مركو دعا مركبة وحويان هوريرا سو أردي إيدا سو أردي أييا سو أردي هبلا إمادي هبلايا إمادي المعذرة إمادي مايا فامل كاغا أذيغا إيا زوج كاغا دحدين وحي كدعا حكو كوب ناضو تدخلات كما مشكلة هذا الضلال كما رأيتين ومحوها دقال الله يكسو حضان دل هبلا سوفر قلي oo dal hebel soo farageli oo caalamkaas ugu yimaado weligeed xal miya laga gaari oo maya Soomaali miiqaad dawladood oo hadda joogto oo ciidamada ay u joogan ma xal baa laga gaaraa tadakhulaadka khaarijiga waxyaabaha reeraha dumiye kamid ah qodobka kale qofka inshigaal mufrid in aad loo mashquulo ninku uu mashquulsan yahay haweeneyda oo mashquulsanta taas khatar weeyaan guriyaha way duminaysaa qodobka kale ghiyaabul xiwaar wada hadal la'aan wala wada hadlinba haweeneydu waxbay dareemi كفر كي تاجيسا ما قرأت جبادي مسلمات هيد وذات كيرا وحناقي انتم محوها واحدة ريمة وسك حناق دب يدب قاعدة وحاجة الإرادة قاعدة الإرادة لا تنم لا ينام الزوجان وهما غاضبان هذه قاعدة قاضي محاية قاعدة أيضا حساحان هردي كائمان ننكاغي يادو يسو حناقصر سي الواحد اللي يبغى عليه بس دب يرهدوك عاد كلا سوقات ومال يردب وككعة دب كاس مال داواني مسوى للدميني يا سؤال لما الدمين اي حناق واساس وكله ما قرأت مركو الدب يركع وين للدمين هديك لا وحو ذا قوبا يا مقالة دي يردن وقوبي مرك أرن كان وأرن مهم أدوة سيدا وكله وحيابها قريها الدمي وحكمده ومشاكشها البخل أو الإسراف كعنا ذيك يبقى خيلمه إيوه إسراف وليه بخل قاعد لك بقى بتقنا دمر كمان ورجع أو بدن نين كعن أذك خير كيسين ودغموا أذك أذكت هذا وأذكت ويلا شيء إن بخيلمك إلى عليه وواحد بخيلمك إلى لسان ولا ليه إذا لا دشة وأبيالك بخيلمك إلى عليه كواسد أود ولدهين كإلى عليه وذات شيخ أو سعوديان آدر ولا رأي أي وحلي هي لا تزوج بنتك من بخيل انت النوش هاي فقير وقوري كبد هذا مت فقير وقوري مت نوعكس وقوري لكن مت بخيل هو قورين محايا لي الدونك أي كو عذابني يسوق بوحة أي باهني يسوق بوحة أي عيلوني يسوق بوحة أي قعان هورسني يسوق بوحة أي دلوبي ما قرأتين بخيل هالسكي إلى لي رجل هلا جارسيو بخيلو قبلكو ما هاينه لكن فقير قبله هاينه ما قرأتين ما نحز حرك هاي قبلها ويلش فقراء يعني قبلها لو جورين محاضرة ولا قفل عليه قبلها بحوها دور قبله يسوي جواب أركاي تأيد أريجا لما قبا إن فقير أن لو جورين قبل لو جورين فقير كمان هو فقير بري وتاجر هذا واحد أركي ومدة أنا أركي إنسان تجارته شري درات مركي إلى اللي جوجين أما أنا أركي جرني فقراء وضعين وتاجرين سو ما قرن لكن بخيل هدو العقبر كيوسي بدأته بخل جيسس يكردي sidoo kale waxa la mid ayna oo waxyaaba guriga duumi kamid al-israaf in lagu xad gudbo haweeneyda ayna ay noqoto musrifad biilki kaba soo qaad reerkeedii $1 ayaa bisha la siinay Sooma waxay rabtaa in la siiyo $5,000 xagee wada waxa kada iyagu filno markay bishi 10 joogto waxay leedahay $1,000 waa dhamaatay wadaadkii had $1,000 kala ageera waa dhamaatay $1,000 keen waa dhamaatay ma garateen musrifad waa israafkana waa xaraan marka Soomaalidu waxay dhihi jireen
dumarku waxaa ugu xun laba ayaa ugu xun ama saddex ugu xun matashato iyo matashiilato iyo mataloto ma garateen beriga hore xijaabiyadan quruxda badan iyo dharkan labiskan quruxda badanoo markii aad 5 bilood wadataba iska tuuraysa ama aad bedelaysa ma jirini hal qayd guntiina iyo garbasaar yar iyo gorgorood yar ayaa la wadan jiray kadibna way dilaaci ma garat markay dilaacdo waa inaad iska tasho ila baadiya ayaa lagu noolaa moogta haddii ay talanin oo maanta qayb ay ka dilaacdo oo birritu kale ka dilaacdo berida marlaan noqonaysa dhar la'aan Soomaalian garan waa matalato matashiilatana waxa weeyaan wixii ay hesh hal mar ay marka ay ka soo baxaysa khalaas wax uu kala dhigma ma lahan baahideedii ka badan boo isticmaalaysa waxyaabaha loo yaqaan asaasiyaadka oo lafdhabar ku ah nolosha iyo waxyaabaha dhamaystirka iyo kamaaliyaadka u ah kama taqaan wixii asaasiyaadka loogu talagalay waxay laadaysaa kamaaliyaadki sooba waa matashiilato matashatana waxa weeyaan waa mid danteeda aan ogeyn marka Allah naga dhowro amiinaha qodobka kale oo todobaad nabigeena kaleey salaatu salaam namuudaj ayuu ahaa tusaale in reerka la dhaqo ma daraba rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam shay'an qat biyadihi nabigeena waligiis wax uma gacan qaadin adoon noqoya anugu dhal noqoya xaaskiisa noqoya qof kale muslim noqoya waligiis ma gacan qaadin illa an yujahida fi sabilillah inuu jihaad nabigeena ku jiro alayhi salaam gacan qaadka iska ilaaliyo caruurta loo gacan qaadin bariyan waxaba jirta in hatta rag loo gacan qaado marka dumarka birigood loo gacan qaadi jiray mogta hadda nin rag oo dumar u gacan qaado waaba yaraadaan umayna ma jirta arintayda ma jirta rag waxaad arkaysaa ka sheegeen waa noola gacan qaaday sax maahan arintayda hal iska ilaaliyo ragii dumarba gacan qaad kuma fiicno sidoo kale qofka in haweeneyda gurigeeda ay ka adkaatana waa dhaqanka saxaabada nabigeena ku ugu fadliga badnaa sayidatu nisaa'i alcaalamiin maalinta qiyaama caalamkoo dhan dumarkooda waxaa sayida u ah faatima binti rasuulillah sallallahu alayhi wasallam gurigeeda ay ka adeegi jirtay ilaa shiid marihii ay wax ku shiidaysay oo gacanta ka qabtay biyo ka galaan soomaa waxaan in dardaarmayaa markaad guriga shaqadiisa in ku culsaato inay idin fudo haddii aad doonaysaan markaad saaxanaysaan subxaana allah 33 jeer walxamdulillah 33 jeer wallahu akbar 34 jeer akhriyo nabigeena kula dardaarmay oo dhagta u saaray faatima binti rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ayaa iyo cali ibn abi talib ayuu nabigan u sheegay tijaabiya haddii aad iska dareemayso kaslaan iyo wahsi aad dareemayso waxyaabaha ku caawinaya ka mid tahay qodobka kale u dambeeyo guriga waxyaabaha inuu xasilo aan umadi karin wadiiqooyinka jidadkaan mari karno taasaan kusoo khatimaya insha allah tabaaraka watacaala kow الصلاة في البيت قريق الصلاة إن لقوا بدي بركة لقوا بدني لبا قراءة القرآن جماعيا إن قرآن كلا وضع آخريه سدح وقتي لو وضع الله ورهرك أي وضع هلان إن اللي سلق بصده أفر إن وحلي سوهدي يتهادوا تحبوا ولقى ننكاغا تتسوق أبحذي معوس قروح بدن شال قروح بدن فلانات قروح بدن شاتي قروح بدن كوفية قروح بدن عطر قروح بدن أدون اسكو حران باع قروح بدن أتسو قبطي كدبنا مركي أد هبينكي وسوهيدة أترى هذا هدية دانا أنا كوكياني ولقى ما سميس يا ما سميسان صوماليا أنا باب كاسونا ما فرنا رجل والله ميت أينا رجل والله ميت هذا قليو حركة أبح أنت سوق هذا kadibna jilbaha dhulka dhigto xaaskiisi iyo muxuu asaa ugu dhiibi a'uudu billah ninka Soomaalida horadii waxay maqli lahaayeen tooriya caloos iska gelin lahaayeen filayaaba shaki waxaan lahayn in hadiyad la sameeyo waa sax ubax noqoya iyo wixii qofka farax gelina iskaal ma waa fiican tahay laakiin habka loo sameeyna waa inay noqonin hab gaalada iyo hab dhaqankooda raacsan midkeena waa inuu noqdo Soomaa ubaxa waa la keeni karaa waana wax wanaagsan oo loogu farax gelin karaa haweeneyda qofka muslimada ayadna way dhiibi kartaa iskaal ma lahan sidoo kale hadiyooyin kala duwan waa saas laakiin waa inay noqoto hab dhaqankeena diinteena mid waafaqsan qodobka kale
markii la wada hadla waa in la isu dhimriyo oon la isdhaadhaajinin saasaa i tiri anoo u jawaabayaa soomaalida waxay dhihi jireen ragga markay la hadlayaan nin dhaadhaajiyey ilmo kama dhalo saasaa i tiri anuu aan dhihi halkaasa igu ma anfacays adigana waa la mid sidoo kale in shaqooyinka la kala qaybsado ninka raggana bannaanku ka soo shaqeeyo adna guriga aad ku wixii ku saabsan aad howl fiican ka qabato qaraabada in la booqda in laisu duceeyo in laisu sabro in isbarbardhiga la iska ilaaliyo qodobka kale waxaa weeyaan oo aad ku cajaa'ibta badan attakaaful qodobkaas aad u dhegaysto horaan waxaan idiin sheegay qodob khatar ah oo reeraha dumiyo soo idinma sheegin oo u horreeyey ma xasuustaan qodobka u dambeeyana waa qodobka haddii qodobkaas ilaahay uu ku waafajiyo weligaa reerkaaga uusan liicaynin biidn illah caza wajal ma garateen qodobkaas muxuu yahay attakaaful qofku inuu ismoogeysiiyo weligaa ma lagu caay adigoo maqlaa inta lagu ag istaagay caay ma lagugu dharoobay oo ma lagu saaray kadibna ma iska qosashiyo qofaan aanba maqlin ma iska dhigta ada wax lagaa sheegaa dad wax kaa sheegaa weligaa ma soo dhex istaagto oo weliba si xun lagaa sheegaa kadibna qofaan weligeed maqlin iska dhigta attakaaful ninkaagi ceebihiisa waxba ha waabiyeelin hadal xun ayuu soo turay qofaan maqlin iska dhig dhaqan xun ayuu sameeyey ha waabiyeelin ma garat raggana waa sida ayada ah imaam axmed ibn xambal caleyh raxmat ullah ayaa waxaa lagu yidhi yaa imaam yuqaalu ina tusca axshaari alcaqli fi اtakaaful waxaa la yidhaahdaa caqliga markii 10 loo qaybiyey 9 ka mid ah qofka caaqilka ah waa qofka waxyaabo badan ismoogeysiiyo isagoo ogsoon qofka muxuu ahay muqafalka oo dhugta aan lahayn maaha wuu ogsoon qofkii waxaan u jeedaa laakiin wuu isdhegatiri wuu ka dhalaabi soo ma garan caqliga qofka caaqilka oo qofka boqolkiiba 90 ismoogeysiiyo waxyaabo badan qofkaas inuu caaqil yahay ayaa la sheegaa bal ka warna ku yidhi markaasaa wuxuu yidhi bal ilcaqlu kulluhu fi اtakaaful caqliga dhammaantii boqolkiiba boqol waa qofka inuu waxyaabo badan wax kasta oo kaa hor imaado haddii aad kafal celiso walle hawl baa ku taal nooda wada taal marka iyada soo ma marka gunaanadkii gabagabadii akhawaat alkariimaat guriga mutma'inka oo xasiloon kan mashaakil aan lahayn ma ahan guri kasta mushkilooyin ayaa ka jira nabigeena calayhi salatu salaam gurigiisii waad ogsoontiin mushkilooyin ayaa ka dhacay oo heer nabigeenna uu reerkiisa ka haajiro oo 29 maalmood uu ka haajiriyey ayaa dhacday waxaa dhacday suurad dhan oo waxaa weeyaan wain tadaahara calayhi faina allaha wamawlaahu wajibriilu wasaalixu lmu'miniin waalmalaa'ikatu bacda dalika dahiir ay ka dhacday waad ogsoontihiin laakiin guriga xasiloon waa guriga ay yaqaanaan labada qof oo maamusho ninka iyo xaaskiisa haweenayda ay yaqaanaan mishkilooyinka sida loo xalliyo ma garateen ma garateen maahan guriga mashkilooyin ka dhacaynin laakiin waa guriga labada lah oo dhabta u lah ay iyaga go'aankiisa leeyihiin oo mishkilooyinka markay yimaadaan siday u xalliyaan yaqaano guriga buuxa guriga mutma'inka ah guriga ay cunno iyo cabitaan iyo qurux iyo alaab ay taalla ma ahan waa guriga ay ka buuxda isu naxariisasho waa guriga aayadda qur-aanka ay ku dabaqmaysa fabima raxmati min allaahi linta lahum intaas ayaan rabay inaan naftayda iyo naftiinaba akhyaara idinla gaaro oon waxaa weyn wadaagno ilaahay waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala biasmaai husna wasifaati alculaa inuu guryaheenna ka dhigo guryo xasiloon inta reer lah reerkooda reer barakaysan uu ka dhigo awlaad saalixiin ilahay subxana wa tacala uu siiyo inta reer la'aanna reer barakaysan oo wanaagsan oo qiimo badan ilahay subxana wa tacala uu yeelo ilaahay ummaddan soomaaliyeed meel kastoo joogan guryahooda allah u ilaaliyo reerkooda allah u ilaaliyo ubadkooda allah u ilaaliyo deganaantooda allah u ilaaliyo toosnaantooda allah u ilaaliyo risqooda allah u waasiciyo amnigooda allah weyneeyo dowladnimo allah siiyo oo muxuu diinta ku dhaqanto allah subxaanahu wa tacala waxaan weydiisanaya bismillahi wa sifaat alculaa markaskan iyo markaska muxuu aha kale oo qaybta diiniga ah intaba iyo akhyaarta u taagan mu'tabarkan iyo inta ka qayb galaysaba adduun iyo aakhiraba allah liibaano
ragga tabina oo muxuu ahaa halkan u fadhiya oo khayrkan faafina oo ku dhaqma qowlullahi tabaaraka wa tacaala wabashir lilmu'miniin la socda waxyaabahan qof kastoo mu'mina markuu arka khayr faafa oo diin la faafina oo muxaadaraad la qabana qof kastoo muslim qalbiga ayuu ka qaboobaya ilaahayna amar wuxuu ku bixiy wabashir almu'miniin aniga waxaan ihi ragga miidiyaha iyo howlaha u taagan ayaddaas qur-aanka ay ku camal falaan oo wabashir almu'miniin ay ugu taagan yihiin adduunya akhrab allah idin liibaano fama asabtu fiihi famin allah wama akhta'tu fiihi famin ashayطaani wamin nafsi wallahu warasuuluhu minhu bara hada wallahu aclam wsala allah wslam ala rasuuli jazakum allah khayran